بسم الله الرحمن الرحيم عشركان waxaan ku baran doonaa half angle formulas waa angle-kii oo waxa loo qaybiyay laba loo qaybiyay way waxaan noo diray sin 15 marka sin 15 oo kale lagu diray marka inta ugu badan waa special angles-ka soo baratay 30 ilaa 90 ahaa mid kamid ah unbaa laba loo qaybiyay 15 waxaan naqaanaa marka waa 30 oo loo qaybiyay 2 taas marka maadaama ay sin tahay formuladii marka half angle-ka tahay waan soo qaadanaynaa meeshaas theta waxaan ku bedelaynaa angle-ka ah 30 ku bedel cos 30 marka ka eegto jadwalka wuxuu la eg tahay √3/2 ku bedel marka meesha cos 30 waxay noqotay marka √3/2 halka marka qaybta sare hadaa eegto ee ah 1 - √3/2 labada hoose isku mid ma aha si aan hooseeyaha u midayna marka 1kan waxaan kor iyo hoosba kaga dhufanaynaa 2 goortaas waxay noqon doontaa marka 2/2 buu 1 ku noqon doonaa labada hoose maadaama isku mid noqdeen waxay noqon doontaa marka labada hoose inaan mid soo qaadano 2 - √3 bay noqonaysaa halka labada hoose ayna mid baan soo qaadanay halka goorta maraysa marka laba jajab weeye jajab sare iyo jajab hoose oo 2 ah oo isu qaybsan sidaas marka waxaan sameeynaa marka qaybta sare 2 - √3/2 oo waxaan ku dhufan doonaa 2 tan oo la rogay 1/2 bay noqonaysaa inta sare soo qaad 2 tan guduudka aan deer aan ku qornay rog kuna dhufo 1/2 way noqonaysaa labada hoose isku dhacaya marka waxay noqonaysaa 4 maadaama uu ku jiro square root 4 ka baxay kuwa kale kama baxayaan laakiin maxay noqonaysaa marka intii sare oo root ku jirta 4 na waxa kaga baxday 2 tusaalaha labaad waa la mid waa cos weeye 30 special angles-kii mid kamid ah oo laba loo qaybiyo ka timaad asalkeeda 60 weeye marka 60 loo qaybiyo 2 way la mid tahay booska marka saytada waxa ku bedeshaa 60 ku bedel waxa raadsa qiimihii cos 60 waxaan naqaanaa inuu la mid yahay 1/2 marka booska waxa ku bedeshaa 1/2 ama half qaybta sare waa jajab hooseyaasha midaynana hooseeyuhu waa 2 si ay hooseyaashu 2 u wada noqdaan 1ka kan kor iyo hoos waxa kaga dhufataa 2 goortaas wuxuu noqon doonaa marka 2/2 labada hooseeya maadaama isku mid noqdeen waxay noqon doontaa 1 + 2/2 waa laba jajab qaybta sare sideeda u soo qaad 1 + 2 3 bay noqotay 3/2 aan soo qaadanay 2ga kana waa maxay waa rogaynaa kadib aan ku dhufanayna isku dhufa marka waxay noqonaysaa 3/4 oo root ku jirta 4ka ka baxaya laakiin 3 kama baxayo halka waxay noqonaysaa marka √3/2 hada wabillahi at-tawfiq